golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug ayaa maantay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ku yeeshay kulankoodii 8aad ee kalfadhiga 12aad isla markaana uu shir gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal. ajandaha kulanka ayaa ahaa akhrinta labaad iyo ka doodida miisaaniyad sanadeedka galmudug ee 2026 iyo ansixinta warbixinta xisaab xirka sanadka 2024 guddiga maaliyadda warshadaha iyo ganacsiga golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug ayaa si kooban ugu soo bandhigay mudanayaasha golaha qodobada u baahan in wax laga bedelo miisaaniyad sanadeedka 2026 oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka galmudug. sidoo kale golaha ayaa maanta ansixiyay xisaab xir sanadeedkii 2024 kadib markii ay goluhu ka doodeen xafiiska hantidhowrka guud ee dowlad goboleedka galmudug. gudoomiyaha golaha wakiilada Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa ku dhawaaqaya natiijada codbixintii loo qaaday qodobadaasi, waxaana uu sheegayaa in gudoomiyuhu si ansax ah loo meelmariyay ajandayaashii ay maanta ka doodeen golaha wakiilada dowlad goboleedka galmudug. warbixinta waa haysatiin waan soo akhriseen, warbixinteedina waa dhamaatay. inta qabto inaan ansixino gacanta taaga. بسم الله الرحمن الرحيم. maantay taariikhdu tahay 7 Oktoobar 2025 kulanka guud ee golaha wakiilada galmudug kalfadhiga 12aad fadhigiisa 8aad kooramkiisa oo ku guntamay 47 mudane kana mid ahayd ajandaha maantay uu ka dooday warbixinta xisaab xir sanadeedka galmudug ee 2024 kadib doodii iyo akhrintii waxay u codeeyeen mudanayaasha golaha codka ansixintana u qaadeen, waxaana ogolaatay 48 mudane, waxaana diiday 1 mudane, waxaana ka aamusay eber. saas ayuu ansax ku yahay.